Ilhaan Cumar ayaa markii afraad oo xiriir ah waxa ay ku guuleysatay kursiga degmada shanaad ee Minnesota. Intaan ugu galino warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Ilhaan Cabdullaahi Cumar ayaa markii afraad oo xiriir ah waxa ay ku guuleysatay kursiga Koongareeska Mareykanka ay ku fadhiso. Waxayna xisbiga dimuqraadiga ah ee ay ka tirsan tahay ay ku matali doontaa degmada shanaad ee gobolka Minnesota. Ilhaan ayaa markii labaad oo xiriir ah waxa ay ka guuleysatay musharaxii iyada la tartamayay ee ka socday xisbiga Jamhuuriga. Waxayna uga badisay codad dheeri oo ay ku soo baxday kuna matali doonto degmada shanaad ee gobolka Minnesota. Waxay Ilhaan Cumar wacdar ka dhigtay tartankii ay la gashay musharaxaasi ka socday xisbiga Jamhuuriga. Dhowr jeer ay Ilhaan waxay caqabad kala kulantay madaxweynihii hore ee talada dalka Mareykanka hayay ee Donald Trump lagu magacaabo. Iyada oo laf dhuun gashay ku noqotay madaxweynahaasi waxa ay dhowr jeer hadallo kulul ay isku mariyeen warbaahinta. Isreebka degmada shanaad ee Minnesota ayaa waxa ay tahay tan ugu adag ee doorashooyinka degmooyinka lagu qabto. Waxaana degmadaasi loo sameeyaa korjoogteyn joogto ah inta ay socoto codbixinta iyo sidoo kale inta ay socoto tirinta codadka. Waxa sidaas loo sameynayo waxa ay tahay in aysan dhicin khilaaf soo kala dhaxgala guddiga doorashooyinka ee degmada iyo sidoo kale musharaxiinta. Ilhaan Cumar waa haweeney 41 jir ah waxayna asal ahaan ka soo jeedaa Soomaaliya. Waxa ay dhowr jeer caqabado kala kulantay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxa uuna dhowr jeer isku dayay isaga iyo xisbigiisa Jamhuuriga ah in ay Ilhaan ka reebaan kursiga ay ku fadhiso ee Koongareeska Mareykanka. Balse Ilhaan ayaa ku dhabar adeegtay waxa ay sameysay tartamo dheeraad ah iyo weliba isku kalsoonaan. Sidoo kalena Soomaalida ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota iyo dad kale oo cadaan ah ayaa u hiiliyay Ilhaan Cumar oo ay kaga guuleysatay dabinkii ay u dhigayeen xisbiga Jamhuuriga oo uu madax u yahay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Sanadkan ayaa waxaa la filayaa in loolanka ugu adag ee Mareykanka uu dhex maro Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ee hadda talada haysa iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxaana Joe Biden oo ahaa ninkii la tartami lahaa Donald Trump uu isdhiibay waqti hore.